Cabdalle Axmed Qaaliba oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya farqiga u dhaxeeya Ramadaanka sanadkii hore oo cudurka COVID-19 uu jiray iyo sanadkani waxaad moodaa sanadkii 2020 iyo kan xagga Ramadaanta farqiga u dhaxeeya 2020 waxay bisha Ramadaan ku soo beegantay xilli dadka ay haysay cabsi nafsi ah oo aad u tiro badan maadaama xanuunku xilligaasi cusbaa waxaa kaloo jirtay masaajidda dalka Masar inay la xiray dhamaantood sidoo kalena waxaa mamnuuc ah in la isugu yimaado goobaha caamka ah sida meheradaha iyo wixii lamida inkastoo la furay masaajidda tobankii dambe ee bisha Ramadaan oo lagu tukanayay inkastoo markaana ay jirtay kala fogaanshaha la ilaalinayay oo dadku aanay isu soo dhawaanaynin halka sanadkan aad moodo inay kaga duwan tahay sanadkii hore horta masaajidda way furan yihiin oo waa lagu tukanaya iyadoo la ilaalinayo kala fogaanshaha bulshada sidoo kalena suuqyada ayaa furan oo caadi looga adeeganaya u shaqeynaya marka waxa la oran karaa sababta farqiga u dhaxaynaya waxa weeye arrimo dhaqaale marka koowaad marka xigtana waxa jirta in uu jiro talaalkii uu ka soconayo gudaha dalka Masar oo si weyn loo qaadanayo hay'adaha shariicada islaamka ee dalka Masar sida Azhar iyo daarta fatwaduna waxay fatwoodeen in ay qofku talaalka qaadan karo iyadoo bisha Ramadaan lagu jiro ama uu sooman yahay aysan jabinaynin xagga Soomaalida hadaynu eegno hadii aad tagto goobaha Soomaalida waxa dareemaysaa in dadku aysan aad u baraarugsanayn la is salaamayo caadi ay la isugu jiro marka guud ahaan farqiga u dhaxeeya Ramadaantii hore iyo tan intaas baa la oran karaa Xuseen dalka Masar ayaa dal ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan dalalka carabta waana dad si weyn ay u maamuusaan bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana guud ahaan magaalada caasimadda ee Qaahira iyo guud ahaan dalka laga dareemaya waxyaabo lagu weyneynayo bisha Ramadaan Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira markana